بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا قدوميها أورك دلنيردا اللغة سلل. أنا مقعي وياي سعد عثمان محمد أو سعيد. هلك ساكو عن كعدينيا. ولا هاي عدي كسوجدا قبلك أما نمتلي كرتا دقالة أوركان وقبان كرتا وح. أبي قرب جوج يوحي فكر كبير صناعي بانو باهنا هاي. waxaan leeyahay ururkan waxaan muddo wuxuu jiray ilaa sanad ayuu gaadhayaa oo nad ka wareysan doontiin isagoo maaragtay uu ka warami doono haddii alla yiraahdo isagoo faahfaahsan oo maaragtay isagoo wax u qabsanay iyo sida inta hanti noo taala xogayahayga ururka Faysal Xaashin Riyaale ayaa ka warami doona imika waxaan ka hadlayaa oo baaq u diraya qurba joogta inay maaragtay waxaan ka shaqeynaa sidaan sporti ay dhalinyaradu isku dhaxgal lahaayeen gobolka إلا سل إلا لغاية سيسكو دحجل لهين سكو العيار لهين ده إسبرتا سكو حلان أو ولا لا وكسو الجديد ديجان أو ما دركتي ده سكو مدرسون أو قاعات سيستوي نقول لهين أيان هذه جركة شقينا وحن قبل الناس أشعدوا أنت أما عيال عن سكو جينو أو كقدرنا كلام كليات كقدرنا حررنا كلام كليات جد جو عن كقدرنا أيان سلع عيار سنا imika waxaan ku tali jirnaa haddii alla yiraahdo oo inoo qabsamo bisha 6 inaan qabano lughayo aan halka xarid intaan jibiir ka ururino selala aan lughayo geyno oo la soo ciyaarsiino saa isku bartaan jibiiradaasi oo deegaan wali yihiin in dad midaatay wali yihiin shirahana shirkayga labaadna aan ku soo qabano lughayo dhexdeeda ururka ahaan oo ilaa 8 xubnood kaga tagno ayaan doonaynaa halkan oo kooxdana ka hayno lughayo tagno ونdegan ka aan soo isku soo xidhno wixii aan u baahanahay kulay ayaa la cidii wax naga taabkulan karaysa qalab waxa xafiis ku baahan yahay computer aan baahanahay imika dhawaan soo jiidatiin baa leena xariga internetka oo talasoona ka soo jiidatiin ururahan si aan isku xidhnaano qurba joogteeda ay noola socdaan wax qabadkayga waxaan doonaa si aan dibadajin dadka ugu waxayno waxyaabahan qabano waxa kamid ah sida dadka u dhashay gobolka ama deegaanka ka soo jeeda sida dhalinyarta Itoobiya wax ku baratay jaamacadaha ka soo baxay sida caafimaad ahaadaan ama maadooyinka kala ahaadaan ayaan ugu tagnaa Itoobiya dhexdeeda raba ama meelaha kale Itoobiya jaamacadaha ka jira waxaan u ballan qaadnaa san anaguna xafiis u geyn lahayn ashaadadooda maaragtay shaqo ugu heli lahayn sidoo shaqo weela oo qof dajin lahayn oo qof kamid ah Soomaaliland ugu dhig lahayn maaragtay deegaanka aan u dadayn lahayn inuu camiri lahayn ayaan hadda jeer ku hawlanahay waxyaabaha ka shaqeynay u sii waaweyn taasaa ka qayb midda kale waxyaabaha noo qorshaysan ee wali aanan qaban waxa kamid ah in ku tiri jirnay inaan qabano inaan ka sameeyno sanadkiiba mar ku ka dhaca awdal ilaa silil oo ilaa 8 kooxood ilaa 10 kooxood isku yimaadaan qarash ahaan uba anaga dib nooga dhigtay waxaan la cidina ka taakuleynaysa ee xafiiska noo qalbaynaysa ama naga qayb qaadanaysa dharkii sportiga ahaato ama kubadii ha noqoto ama birihi teelaanada laga taagayay waxaan leenahay cidii naga taakuleynaysa wax naga la qabanaysa deegaanka u dhalatay waxaan leenahay in garab joogsadaan hanala qabtaan wax san deegaanka aan u meel aan dadka ugu soo biirinayn aan dibadajin dadka inuu ugu sameeynayn in dadkeena maanta u baraarujinayn deegaanka aan jeclaysiinayn ama dhalinyarada maaragtay deegaanada ama Djibouti ha joogan ama Itoobiya joogan u dhalatay siiba Soomaaliland ee deegaanka Salel ilaa lughayo ka soo jeeda san u furi lahayn ay waliba reer uga furan lahaayeen eelka ugu guursan lahayn u wadiga reer ugu yeelan lahaayeen ayaan inta badan ka shaqeynaa oo miimiyada saarnaa wixii wax qabada ee cidii wax nagala qabanayso waxaan leenahay hanbaliyo inayna garab joogsatiin baan qurb joogta ka doonaynaa sida ugu qurux badan in baaqan uga soo jawaabaan waxna noola qabtaan fikrahan hadda fikir macal hayaan in fikirkooda ugu darsadaan maanta caalamka wada aragtay Soomaaliya cid wax dhisaysa wax horumarinaysa waa qurba joogta beel waliba u dhalatay deegaan waliba u dhalatay waxaan maleeyaa deegaankan Salil iyo lughay qurba joogteedii inay maaragtay marmar una xasuustaan inta oo badan xasuustooda malaha ka maqanaasnaa sababta waa raggaas oo ka hadlayay oo dhalinyarada maxay u leeyihiin maxay sameysteen horumar maxay gaadheen cid ka hadlayso oo wali nala soo xiriiday ma jirto cid waxyaab dana kale ka hadlayso way badan yihiin cid wax dejin karta ee wax meelayn karta ama waxaan ku qabsan karnaa waa dhalinyaro hadda isku xiran tahay
كما سوق أفرتن دليرا وان دوكا كلا كسوق كلا كحيني إثيوبيا قارن أنا قايل أنا جامعة دوكا قارن جيبوتي كسوق كحيني أفرتن كابر هراي كسمايستان شقوين كهلان dadkaas dad noo soo biiray noqonayaan meelo banaan way buuxinayaan sida awgeed turba joogteeda oo u fiirsato dhalinyarada halana shaqeyso halana soo xiliinaan baan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh